السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتنا الداوانيسا كسر هذا برنامج كحكمال وإذا كجاي معنا ستار تي في حرمتنا كلها إنها لندن وحنا كوضا ورقبنا إن بدن دولة آدية الله عنها دولة السوماليلاند أو دليله هذا الله شيء وحيالها أنا قبن وحيالها لوجبها إني قبته يدو مركز تا معارض iyo shacabba ay u taagan yihiin inay waxyaalaha galdololada ah ee qaldan ee dawladdu intay ballan qaaday ay ka soo bixi weyday farta lagu fiiqo la yiraahdo halka waxba kama qaban bal waxaan isku dayi doonaa caawa daawadayaal inaad nala daawataan sidoo kale mar labaad in dadka runtii aad moodo inay mar kastaba ay dawladda sida cad wax ugu sheegaan inay caawa ay nagala qayb galaan barnaamijka xogmaal in waxaweyaan waa cali maxamed yuusuf cali gurey oo ah gudoomiyaha saddexaad ee ururka ama xisbiga ucid in gudoomiyuhu waxbarashadiisii wuxuu ku soo qaatay Hargeysa isagoo markii dambana shaqaalaha dawladda ee xilliga kacaankii ka soo qayb galay kadibna dibadda u soo baxay oo waxbarashadiisii wax badan halka ku soo qaatay kadibna ku soo noqday maalmihii UFO ay timi Hargeysa ee kacaanka ay ka bilowday halkaana kaga biiray ururkii SNM runtii la oran karo wuxuu ahaa hogaamiyaasha waaweyn ee ururkii xagudirka ururka dhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM in ururkaas runtii la oran karo markii dambe isaga ku guuleystay inuu waqooyiga uu maamulo isla markaasina shirkii ugu dambeeyay lagu magacaabay amba waxa weeyaan maxay lagu soo saaray magacii dawladda Somaliland ee xilliga la aasaasay markii dambana wuxuu noqday gudoomiyuhu waxa uu ku beeray kulmiye oo markii dambe la aasaasay kadibna haddana uu ka soo digar rogtay oo wuxuu u soo wareegay udub imaka laakiin wuxuu ku dambeeyay ucid ku soo dhawow cali maxamed yuusuf cali gurey caawa star tv aad baa mahadsantiin star tv oo markiisuu kan horeysay baan u maleynayaa ay toos soo aragno okay in aad baan ku soo dhaweynaynaa cali in waxa aanu horta marka hore doonayna inaanu ka wareysano in dalkii inaad bal aad war naga siiso adaa imika ka yimi adaa imika dadka qurbaha u badan waxay aad u jecel yihiin marka ugu horeysa inay helaan xog fara badan marka bal xogta horta bal 2 minute meelaha ayaan ku siineynaa maxaa cusub maxaa si qabsoomay se maxaad rajo muujinaysaa oo dalkii aad ku soo imika aad u sheegi kartaa dhammaan bulshada ku daawanaysa ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim Somaliland ilaa iyo 19 waqtigiin waxay ku jirtaa geedi socodka qaran dhiska waxa la yiraahdo ama nation building ilaa maalinta barco lagaga dhawaaqay gooristaaga Somaliland ilaa maanta de way noognahay xaaladda inta u dhaxaysa ee isbedelaha ay soo gaadhay waana ilaahay mahadi maray gaabiso iyo maray kufto iyo maray kacdo ba itaalkeeda de way soo xagabsanaysay waxaanay maanta maraysaa meel ilaahay lagu mahadiyo haddaad xaaladda maanta eegtana waxaan ku tilmaamayaa xilli xasaasi ah oo ay khataro badani ku xeeran yihiin geedi socodkii qaran dhiska oo aan marar horena sheegay inaynu gallay marxalad ka mid ah marxaladihii ugu khatarta badnaa ee ay soo marto Somaliland iyo geedi socodkeeda qaran dhisku gaar ahaan dhinaca siyaasadda oo ay jiraan booraamo siyaasadeed oo waaweyn oo dildilaacay intii xukuumaddani ay xilka haysay oo furfuray midnimadii qaranka ama midnimadii shacbiga Somaliland kala furfuray oo qabyaalad iyo ku celiyay meel ay waqti hore ka soo tagtay ama ka soo reenisay haddana dhinaca kale xagga nolosha iyo dhismaha iyo dhaqaaluhuba waxaynu gaadhnay xilli markii hore dunidu inoo arkaysay meel u baahanuun waxa la yiraahdaa emergency ama rehabilitation stage ama xaalad degdeg ah oo ku jirta
laakiin nasiib wanaag xukuumaddani way ka nasiib wanaagsan tahay xukuumadihii hore waxay xilka qabatay innagoo u gaadhnay xeer aynu u gudubnay waxaa la yidhaha development stage oo aynu ka soo baxnay emergencygii iyo rehabilitationkii ama tii deg deg ahayd iyo tii dibu dhiska iyo dayactirka dalka oo aynu gaadhnay markaa heer wakti waxay la wareegtay xilka ay dadka badani kusoo dhiiradeen somaliland inay tahay meel u baahan in la maal gashado waxay heshay fursado badan oo dhaqaalaha dunida adkaaday uu keenay oo gaar ahaan dhinaca saliidda oo aynu ognahay qiimaheeda halkuu ahaan jiray iyo halkay tagtay oo keenay baahi in wadamo badan imika laga baadho saliid oo la maal gashado iyo macdanaha nabadgelyadeeda somalilandna ilaa iyo bilowgiiba runtii waxay ahayd meel markaa fursadaha qaaliga ah bar badan xukuumaddani waan ka xumahay way dayacday way niyad jebisay dadkii u han weynaa in ay somaliland maal gashadaan tusaale waxaad usoo qaadan karaysaa shirkaddii shidaalka sahminaysay ee channel muxaafid iyo mucaarid iyo muxaafid midna kuma may u sabab ahayn wixii ka dhacay shirkadda ee keenay inay gebi ahaanba ka duuduubato mar dalka iyada oo runtii ahaa tii ugu horreysay oonu aada u taageernay oonu weliba ku celcelinay in loo dulqaato xataa hadday wax ka qaldan yihiin qaababka loo galay waxaana waxaa baabi'iyey hunguri okay waan u iman doonaa marka adigu ilaha in ayaad dirtuba ku bilowday waxaan doonaynaa horta bal inaad waxaan kuu sheegay in aynu gaadhnay heer kii horumarinta okay waa gartay in masalan in cali gurey ama cali maxamed yuusuf waxaa sida macruufka ah snamtii waad ku jirtay weliba waxaad ahayd sayid cumar raggii taliyaasha ka ahaa ku noqon mayno taariikhda dheer waa taariikh fogo u baahan iyada in maalmo gooniya waxa weeyaan la rogrogo laakiin haddii laga soo bilaabo siyaasadaada yani waxaad ka soo bilowday kulmiye haddana waxaad ku xigsiisay udub haddana waxaad ku xigsiisay oo imika aada ugu dambeyso oo guddoomiyaha saddexaad aad tahay ucid waxa dadka dhalinyarada ah ay doonayaan inay fahmaan maxaa aynu kaga duwanahay somaliland in qofku intuu kasoo baxo kulmiye haddana uu ucid galo haddana udub galo haddana mid kale haddana laga yaabo inaad sii gasho maxaa keenay bal waxaan u baahanay inaad ummadda u sharaxdo waxa keenay ee aad ku aragtay maxaad dhaliisha mar kastood xisbi ka baxaysood xisbi kale ugu guureysay horta su-aasha waa su-aashii aan ugu jeclaa in la i weydiiyo waan gartay horta siyaasadda ma gelin ba anugu sax ikhtiyaarkayga ba kuma gelin sax inaan siyaasi noqdona maan dooran manaan jeclayn weliba waxaan ku galay rabitaan cid kale siyaasadda kayga kumaan gelin rabitaanka axmed siira ayaan ku galay madaxweyneheenna oo aanu saaxiib shaksiya ahaan jirnay beri oo markii ururada la furanayeyna aan runtii ku dhiiran inuu urur furto laakiin mar dambe oo bil lagu daray muddadii ururada la diiwaan gelinayey ay iila yimi fikirkaa sax oo malaha dee kolley dad kale kasoo sheekaysteen laakiin anagu marka iyaga hore aanu isku ogeyn inaanu siyaasadda u diyaarahayn inuu furto dabeed waxay ii noqotay inaan ka aqbalo ugu yaraan tii kulmiye haata kulmiye tii udubna horta taasaasaan ku galay waan gartay wixii aan kaga baxayna kulmiye sax anigu xusbi qurun baan ka baxay sax horta sax xusbi labaad kama bixin xusbiga qurahii aan ka baxayna waa kulmiye udub isagu sii soo burbura ka bixitaankaygaa kulmiyana ilaa hadda waxaan u arkaa inaan sax ahay waayo waxaan sheegay isbedelka uu kulmiyaha aan ku jirin 7 sanadood ku jiray saaxiibkay madaxweynaha ku noqonayo isbedelka uu la iman doona inaanu ahayn isbedel ka tarjumaya rabitaanka iyo dareenka shacbiga
ويهي مد كوحدنيد okay أي دنوه دكفشنا يعني كاميان إن هذا الكاغا مركا تيب لو ده ميان لو أركهينين إن qof yani ku jeclaado inaad u soo gashay laakiin aanad u gelin system aad aragtay oo qoran oo markaa tiriha lagu dhaqmo maad oran systemkan aynu ku dhaqano laakiin horta igamaad sugin waxaan kuu sheegi lahaa waan gartay waxaan ka aqbalay waan ku iri anigoo isaga ixtiraamaya sax in aan la saxeexo waxa uu iga baahnaana sax waxay ahayd sharciga marka xeer ilaalinta laga sharciyeynayo in shan qof la saxeexdo marka inaan mid ka mid noqdo kalsooni uu igu qabay baan u deetaa ayuu sameeyay anna waan ka aqbalay udubna isagu burbura de horta udub hayaga leeyahay su'aashii waxaan horta aan kulmiye ku baro way habeenkii markaan saa isku aragnay ikhtiyaar buu nasiiyay horta kullay aniga iyo rag kalaba sax oranaya marka aynu xareyno liiska sagaalka subaxnimo risaan gareeya haddaad doonaysaan sax laakiin ila saxeexa imika si aan xiraalinta dawgeeyo diiwaan gelinta waan la saxeexnay subaxii markaanu nimi ninkii ugu horreeyey wuxuu yidhi waa taynu xalay ballanay oo anigaa kula saxeexay istiqaaladeydina waa taa afar baan isugu nimi markaa waa subaxnimadii istiqaaladeydina waa taa ninkaasina inay saaxiib yihiin isna oo udub ah ayuu ahaa oo uu burco uga yeedhay uu ka aqbalay ninkii labaad baa hadlay waa wasiirkan cadaaladda imika xuseen axmed caydi waxaan ka mid ahay buu yidhi guddida xasuuqa oo dee bayroolka dawladdu ku jira xusbi siyaasi ah waxba aniguna kaalama qaban karayo oo dee isma muujin karo runtiina way ahayd waxaa isku soo hornay aniga isagoo qura fagadhana allah yarxame ininka shanaad bahay uu naga maqnaa aniga waxay la noqon weyday markay labadii kalaba cudur daarteen aanan ogeyna cid kale oo dee bahalkii la dhisaysa ha kaga tegin kelinimadaasoo dee markaa keligii baa soo dhahay haddaan aniguna idhaahdo aniguna dee waataynu xalay ku ballanay haddii ku tiri sagaalka iska baxa waan ka xishooday taa anigoo isaga qadarinaya markaa waxaan damcay inaan ilaa iyo shirweynaha la sii wado adigu kolba dalcad kala riix intaa aan ahaana mar kastana kuma niyad samnayn inaan siyaasiba noqdo sida wax u socdaan xataa inaan maya sida wax u socdaan isbedel loo baahan yahay waan qabay isbedelkana waanu ku bilown sax waxaanu isaguna mar walba qiraa taladii uu xisbiganiba ku soo baxay inaan anigu lahaa waayo waxaa laga iibiyey aynu qaadacna doorashada oo ay rag badan loo badnaa waynu fahanay kulmiye in haddaba udub iyo si adoo yar dedejinay su'aalo badan baan doonayaan ku weydiiyo udub haddaba udub anigu kama bixin udub sidee u burburtay iyadoo mise waa la burburiyey adigu aan muhiim way burburtay markaa hadday se gaaban ku daynayno okay anigu waxaan ku sheegay markabkii Titanic ee buurta barafka jiray laakiin markaad ka soo baxday kulmiye iyada lafteeda sideebad ku soo gashay iyadana ma qof aad ku jecel baa soo gal maya waxa ii gudboonaaday ragii ugu horreeya ka baxay horta صح وبدرنا صاحبنا صح oo isna wali baaha waan gartay oo de ila Cabdiraxmaan Ali iyo ay ku jireen iyo iga horeeyay iyo Ibrahim Dhegaweyne iyo ragii de burca kaga baxay صح burco madashi kaga baxay صح ragaasi xusbina miigelin saddex xusbi baa jiray marka waxa ii gudboonaaday in aanan xusbina gelin waayo fursad baan helay aan dee le markii hore baan uma jeclayn siyaasadda صح صح fursad bay ii ahayd inaan halkaa ka siibto oon xusbiba gelin markaa sidaydii hore aan ku sameeyo صح laakiin udub inaan galo iyadana waxaa ii geeyey ficil oo inaan waxaa kulmiya soo wado ka hortago waayo xogogaal baan ahay in lagu jabayaa baan ogahay taladooda in aanay iyagu meel wada socon baan ogahay in raggaa meesha wada hogaaminaya maaha in rag kale daahiyada dabadooda ugu jiraan baan ogahay in koox wadaada ah markii ay ka baxeen Ibrahim Dhegaweyne iyo gruubka islam tahayo intayada dee hormoodka ahay markay naga wada baxeen koox kale wadaadii la wareegeen kooxda wadaadina ay ajandahooda gaarka ah leeyihiin oo aanay u ogolayn kuwa SNM inay meeshan power ku yeeshaan sidii baan u dhacday kuwa SNM ahaan salaam bay ka dhigteen marka khatartaa soo baxaysa
ayaad ka hortagtay inaan kala hortago oo dee aanan dadka ku sii dayn markii udu burburana ucid bay noqotay marka inaad ku soo noqoto oo markasta ficilkii udubad ku bilowdo inaad ucidna ku soo gasho maya ucidna waxaan arkay in xukuumaddan ay doonayso in xisbigeedu may labada xisbiga kale ay baabi'iso ucid iyo udubba labadaasba oo qaar iyagoo ay samaysteen ay soo baxaan bal telefoonkan qabanayna kadibna waan kugu soo dabeedna labadaasaan arkay ku soo dhaw daawada halkaad ka soo hadlasay magacaaga adoo raaliya السلام عليكم ولا اسمان باليها ha ku soo dhaw ismaan dad baan ka soo hadlaya ay ku soo dhaw waxaan wadi salaamaya labadiina adiyo cali wadi salaamaya odaga waxaan leeyahay soo dhaw insha Allah waad og soo dhaweynaa waana ku salaamaya salaam kaliya waxaan kaloo gudbayaa waxaan doonayaa inaan su'aalo weydiiyo ama aan magaranaysaa waa xisbigooda waxoogaa fikradaha aan ku arkayaan wax ka sheego صح هذا دجنيا لكن والله الوحوية حسبي أعد إن وحسبي قرن حدنا وحكم وغسا وحيابها أنا أقول يا أبي وحيابها وحكم إذا كلمة التبيارات ويكرر قادا تسأل مركز وقاسو علي قوري تاريخها كم إذا وحسبي ماشي اللي هو قبلي وحلول السعودي وشرحي مدحوينه ماشي قبل وحوي وببلغ التيفيات كي ويدينكو ننا اولا امر هير كاس جوجو مدحوينه كخوين yahay ayaad nin reer kaas dooranaysa marka ka soo noqdo baysal ninka la yahay muddo imika bil laga joogo ninka la yiraahdo Jamaan Cali Xuseen wuxuu ka soo digay berberu ka soo digay dhiga weynaha soo dhaweeyay dabeedna waxa yiri dhiga weynaha wuxuu yiri waxaan magaalada saaran dad been magaalada saaran ku soo duulay ama magaalada dib been u xoreeyna Jamaan Cali Xuseen shacabku tumay waana loo mashxaraday waxyaabaha iga yaabiyo waxa kamid ah qof kasta oo xisbiga kamid ah qabyaalada soo hadlaashay Faysal Cali Waraabe afar 20 saac wadayaarad buu ka hadlayaa xisbigan maxaa laga rabaa ujeedada laga leeyahay xisbigan sida loo xisbi qaran looga dhigayo ama madaxtooyada ku gaarayo haddii qabyaaladna ka shaqeynay wadankiina aanu ba gaarayno gabigiisu waa hargeysa ku goobay maxaa laga rabaa xisbiga inuu certificate haysto baa la doonayaa aad waxa la doonayaa inuu xisbi qaran noqdo aad dad ma san tahay walaal oo ummadda meel walba garo oo meel koonayaasha Soomaaliland walaal ma maqlaysaa ولا أدود ما سنتهاي وقت بدل ما كسيدو بدل ما دوني أنا تلفون كهذا أنا دتشان أدو شعلانة لكن كل أد بكون فاهمي مجاهد سيف ما نفهم سولو أرد تجيب لي أنا صح أرد قبيالد واتو أحمد سينا يكو صباحي طلع يا ساقه صح قبيالد واتي قرادك لوجو ترشدي قبيالد واتي إمك كتيرتا dalka anigu reer ma sheego laakiin waxa weeye Axmed Yuusuf Yaasiin baa musharax madaxweyne ku xigeen ka ahaa Soomaa daahir yaalana wuxuu ka ahaa madaxweynuhu uga sharaxna halkan kale Axmed Siraan yaa madaxweyne ka ahaa nin kale oo سيلعنا وحكاها مدحوينه marka waxa weeye constituency ahaan waxa gabilay constituency Axmed Yuusuf Yaasiin leeyahay سؤال garadagna gabilayna kuma naashirin qabyaaladahan uma naashirin qabyaaladahan haddaanu qabyaalad doonayeen Faysal Cali Waraaban raaci lahaa laakiin waxa raacay daahir riyaale iyagoo laba nin oo isaaq sharaxan yihiin صح ayaan daahir yaal raac halka su'aal baa laga weydiinaya ucud ahaan imika xisbiga saddexaad baatay ucud hadaad sheegtaba triba qabyaalad baa jirta midalan ma waxaad leedahay marka ugu horeysa horta ucud systemkiisa iyo sidoo u socdo iyo qabyaalada ka marna horta waa su'aasha koowaad su'aasha labaad idinka hadaad leedahay ba anigu qabyaalada waan ka soo horjeedaa oo anigu waxa weeyaan ma kama soo horjeedo qabyaaladu waa dhaqan waxaan raacay in riyaale marka ii noqoto nin isaaq in riyaalan ka raacay haddaan qabyaalad eegayo waxaan raaci lahaa haday saa tahay maxaa idinka yaala hadhow ku guuleystaan dalkii
سيستم كي سيلايون كسعون ما يساعد ما يرت قبيالته لا هذا يري ورت ريالته حقيقة وحلا يلا هذا ضفرته صح ودبوي أو اعتراء بلا قبيالة بيسومالي لانشريس شري ميس صح هذه ما أنت برلمان الدوران ينك هاي لحد ليه عدك وحسينا يعني كرير كود هدو كسر حي حسب جاي نقعد أو أنا كسر حنين حسب جيسة كل مية صح عدك أنتو السجون نقعد سيني صح أيوم مرشح ينادير كيه قعد كسر حنسيني صح وواحد الصمري صح كونسل كمان أنت عين الدوراني مد والبا أنت أعضيس وأنت أرداجي سعيد برلمان كمان أنت عين ولا هاي عد يجوا بيني سهيجوا بيني حيدي كي لك نولي وحق صباح كوعدهان أرت أنا وكعودهان سياسة ضوعد كهل معي صح حسبها لكن واحد كهل عرفت ذي الشخصي يوم وقته صح قبيلته وواحد ولا نقول هاي صح حماننا ويلاده صح وناقنا ويلاده صح marka Soomaaliland waxay maanta ku socotay ay halka ku soo gaadhay waa dhaqan صح dhaqanka jiraana waa qabyaalad waxa suuqa Hargeysa ay lacagta u waranta iyadoon bileys jirin oo military lahayn oo cid ilaalinaysa jirin waxay shaariciyada Hargeysa lacagta iyo dahabka u wadnaayeen waxay ahayd qabyaalad waxa loo reebay warka laga baqanaya haayo ya dhacay islankiisa reerkiisa la dhacay waa geeli la kala qaadiyo kale haddaad isku dhacdo xoolaha reer hebel adna kiinu baa la dhacaya marka amaanku waxa weeye aynu kala joogno marka markay sidaa tahay waa sax laakiin anigu waligay reer tashanayana kama qayb gelin sax reerkayga shirayana kama qayb gelin wanaaga aad leedahay waxbaad ku soo dhaweyn kartaa waa kuwii midalan yani taas leedahay midalan imaka hadii xisbigu ku guuleysto anigu waxaan qabaa in laga guuro fikirkan lagu dooranayo qofka reernimada inta in laga guuro orta sax waayo in adeerkay ruma oo tuug ah oo khayn ah oo musharax iyo nin wanaagsan oo aqaan oo reerkayga ahayn ayaan ka dooranaya kii tuuga ayaan tuugi dooranaya kan qabanaya ku soo noqon taa in loo guuraan jecel anigu ku soo dhawow daawad halkaad ka soo hadlaysay magacaaga adoo raaliya walaalo assalaamu calaykum calaykum magacayga waxa la dhahaa walaal Saciid Cabdullaahi Ducaale magaalada Bristol ku soo dhawow Saciid marka hore waxaan doonayaa salaamooyin mujaahidka Cali Yuusuf oo kula fadhiya sax aan runtii aad ugu soo dhaweynay magaalada maartay Bristolna rajaynayo inuu noo iman doono insha Allah waxaan leenahay welcome marka hore adigana aad baan kugu salaamayaa walaal sax aad u maasantay waxaan doonayaa inaan laba saddex erey ka iraahdo daawado hore oo soo hadlay iyo fikirkayga aan dee runtii ka aaminsanahay arrintaa imika laga dhawaajiyo qabyaaladii uu ka hadlay iyo dee guud ahaan waddankaba waa marka hore daawadihii ka horreeyey wuxuu sheegay in xisbiga ucud anuu xisbiga ucud kama mid yihiin laakiin runtii dee waan daawadaa waana arkaynaa waddankii wax ka socda waa marka koowaade qabyaalada horta waddankan qolada waddanka imika haysta kulmiya weliba de imika kulmiya ma jire de xukuumadda imika maanta meesha joogtaa waxay waddankan qabsatay iyadoo aan qabyaalada ka jirin bariya galbeed dadku isku xidhan yihiin macnihii waddanku dee dadku gacmaha is wada haystaan waa inagii arkaynay dee madaxweyne daahir reeleka inuu lahaa dal iyo dad midaysan baa kugu wareejiyay daawadihii iga horreeyey wuxuu sheegay inay barmoodgareeyaan macnihii xisbiga ucud macnihii inay barmoodgareeyaan qabyaaladda runtii anuu aad baan uga duwanaya arrintaasoo waxaan ii sheegayaa in xisbiga kulmiye especially weliba xukuumadda anugu xisbiga kulmiye kama hadlaye ay iyagu yihiin kuwa horta barmoodgareeya qabyaaladda example baan ku siinayaa waxaan ku siinayaa waa dawlad doorashadii deegaanadii berigii dhow tala dhacday magaalada berbereweydii kii ogaa wixii ka dhacay dawladeena dhan ee madaxtooyadu adiga arkayay campaignka ka gashay inay maayar ku-xigeen macnihii hab qabyaalada u bedesho oo cad oo la wada arkayo laba oo maayarkii iyo barasaabkii dhammaan lagu casilay macnihii halkii qabyaaladu gaadhsiisantay waxaan ognahay xukuumadda waddanka ka dhisan inay jiraan wasiiro aan laba taaban inta kale waa la bedelaa laakiin lama taabto wasiiro aynu dadka oo dhanna wada ogyihiin marka iyama qabyaalada isticmaalaya macnihii marka
ma xisbiyada mucaaradka سعيد ma dawladda سعيد dad badan baa ku jira telefonka ra'yigaaga waad dhiibatay kolley runtii mujaahidku kuu soo sheego dheeraaday waana salaamaya mujaahidkana wuxuu ku yidhi laakiin qabyaaladu waxa weeyaan waa mid lagu nool yahayba marka inaad dafirtaan ma aha walaal intaasaynu kaga mid baxaynaa. yar baan doonaya inaan ku yar raaciyo adigoo uga raaliya laakiin aad u dedeji waayo dad badan baa ayaa ku jira khadka adoo aad u raacay waayo kelmad yar baan doonaya ku gabagabeeyo walaal haye middan doonaya ku gabagabeeyo waxa weeye dawladdeena inta badan waxay sheegtaa inay dadka wadooyin u samayso wax u qabato dadka adigu inaad waddo u dhisto waxa ka xun dadka akhlaaqiyaadkooda iyo ethicskooda aad baabiiso yani dalka waxaan aaminsanahay inay maanta qabyaalad ku celiyeen oo waxa ugu liitaa marka dadkooda akhlaaqiyan baabiisaa ka xun walaal oo macnihii inaad wax u dhisto aad ayaad u mahadsan tahay aad baa mahadsan walaal سعيد buu ahay Bristol nagala soo hadlay UK aan kugu soo noqdo cali guri gudoomiyaha saddexaad ee xisbiga ucud badanka dadku marka ay ka hadlayaan cali guri waxay yidhaahdaan cali guri system kama sheekeeyo dad buu abaaraa wasiiru abaaraa wasiir hebel waa caynka systemka dalka yaala ee masalan amba ha qaloocsanaado amba ha saxsanaado maxaad u sixi weydaa waa su-aasha mar kasta la isweydiiyo horta anigu qof kama hadlo sax hadday dhacdo markay dhacdo dhacdadaasi cirka kama soo dhacdo sax cid baa samaysa sax inta badan waxaan ka hadlaa xil qof xil haya oo xilkii uu hayay u isticmaalay si qaldan waa misuse of power markaan airportka hargeysa ka hadlayo ee aan ogahay wasiirka duulista hawadu roolkuu ku lahaa ee aan ogahay in $10 million ay ku bixisay Kuwait Fund in lagu dhiso airportka hargeysa oo keliya mashruucaas wuxuu ahaa hargeysa airport project lagama dhigin inta aqal la galay madow ayaa la googoostay marka ciddii mas-uuliyadda ahayd ayuma taabtaa ee uma shakhsiyan qof inta badan hadduu mas-uuliyadda ka tago markaa lama hadlaysid hadduu mas-uuliyadda ka tago oo xil qaranka u hayn lama hadlo anugu marka waxa weeyaan laakiin haddaad doonaysa inaan kula hadalda xilka iskaga tag laakiin qaabkaad u duraysaa waxaa la igu yidhaa qaabkaad u duraysaa miyaan ahayn qaab inaad shakhsi taa aan qiro haye beri baan kulmiyaa wuxuu dabagalay xoghayaha udub oo ahaan jiray ninay manaaris u bixiyeen oo jaamac yaasiin oo dabeedna anigoo u jeeda war haddaa madaxda kulmiye waxay ku xidheen calanka udubba lagu xidhay dameer anigoo u jeeda war haddaa madaxda iyada dee waxaa ku samaysaan dabcan axmed siiraanyana iyo madaxdiinana intaa in la eg ayaa lagu samayn doonaa si fiican waan hubaa inuu madaxweynaha oo markaa ahaa guddoomiyaha kulmiye uu ii fahamsanaa inaan u jeedo wanaaggiisa laakiin si kalaa loo isticmaalo waxa la yidhi cali guri hargeysu sheeganaya wuxuu yihi wallahi inaanu shacabka hargeysa marayn wallahi inaanu oo nin hargeysa ka sheeganaya axmed siiraanya laga dhigay iyadoo suuqa laygu haysto ayaa waxay qabsaday ninaan aada u jecelahay oo xildhibaan cabdilqaadir jirdaaw cali halkeen ka qaldamay waan qoladii haysatay oo iyo anigoo jiquskaa markaan ayuu yimid warran marka calo fariintaaduna sax bay ahay hargeysana cid kamaad sheegan laakiin lahjadii aad ku tidhi waxay ahayd mid xun oo qallafsan oo adag waxaad heli karaysa inaad adeegsato ereye kuwaa ka wanaagsan ama ka duwan waan ku gacan qaaday waxaan ku sax baad marka anu saasaan qoraa wixii qaladeen leeyahayna marka la ii sheego markhaatina wuu ka yahay xildhibaan cabdilqaadir waxa weydiisaan cabdilqaadir khad baa ku jira in ku soo dhawo daawada halkaad ka soo hadlaysay magacaaga asalaamu calaykum waraxmat ullah hello dawadahaasi uu ka go-ay in waxaan dee kolley ma joogo dawladdii ma joogto waa inaan dawladdii noqdo anigu adigu noqo weliba laba kalena u yeedh hadda badankaa cali gurey waxa uu sheegaa bob inuu dalka ka jiro in dhaqaalihii imika waxaad sheegtay wasiirkii imika in si xun lagu takrifaray xoolihii lacagta faraha badnayd ee Kuwait ay si gaara u siisay madaarka Hargeysa boobo fara badan baad sheegtaa
إن أرتوا مدة وجوه الرئيس بوبك ما يعني واحد وهيسا wax cadayna oo markaasi oranaya lacagta intaas lagu bixiyay kadibna oo markaa wasiirkii waxaad baarlamaanka ugu gudbin weyday taas waa mid talabaad in idinka uu cid ahaan in xisbi baatihiin qaran xisbigiina qaran dhaqaalaha soo gala dhaqaalihiina ma waxaad leedahay corruption iyo fasaad iyo musuqmaasuq kama jiro su-aasha waad ka jawaab doontaa laakiin telefoonkan qabanaya kadibna labada su-aalood buu diyaarin doontaa insha allah jawaabtooda kusoo dhawow halkaad ka soo hadlaysa daawadayo magacaaga adoo raalliya calaykum asalaam magacaaga walaal adoo raalliya walaal magacayga axmed faarax baa layidhaha axmed faarax kusoo dhaw nagala soo hadlaysaa london ha kusoo dhawo axmed labadiina u wadi salaamay walaal waxaan rabay inaan ra'yi ka dhiibto ha aada u dadeji laakiin adoo raalliya yaa walaal yar dadeji waayo dad badan baa telefoonka jira sorry waxaan ra'yi ka dhiibto somaliland iyo xisbiyadan cusub xisbiyadan iminka doorashada gelaya ama uu ninba midba mid eeganayo ama nin odayaho somaliland la aflagaadeynayo waxaa wanaagsanaan lahayd meeshan waa dawlad ictiraafna uma dhimana dadkuna waa dad u bisil dawladnimada iyo nabadda inaan siyaasiyiintu shicibka aanay marin habaabin oo ay u daay silaayo markuu imanayna dad ammaanaya markuu yimidna dadkii walba way ku kaceen maxaa isku bedelay qofku 2 year gudaheed min qofku isbedelaa walaal silaayo intuu qabtay 8 sano riyaal saaxiib riyaalka ay maanu qaban maalin walba nin baa meel laga celinaya mid baa cadaalad darradiisa laga dagaalamaya lagu noqon dhulka horumar uu doonaya ummadda hoggaan iyo liidar wanaagsan ha lagu hago aad ayaad u mahadsan tahay axmed aad ayaad u mahadsan tahay su-aalihii baan kugu soo noqonayaa su-aalihii maxaa tan anigu saddex arrin baan ka hadla sax musuq maasuq sax eex sax iyo qaraabo kiil sax dadka ku xeeran axmed siraan waa naqaanaa nin hunguri iyo nin lacag booba iyo nin musuq maasuq jecel midna maaha nin lacag urursadana maaha laakiin inta ku xeeran oo ay kow ka yihiin weliba kuwa wadaadada sheeganaya hamigooda ugu weyn wadaadadu waa kuwaya bal magacyadooda ma noo sheegi horta hebelada bal iska dhaafo ha ma wadaadaad jira hamigooda ugu weyn waxaan ku idhi hamigooda ugu weyn kulmiye kooxuha sax maanta anigu kulmiye ma eedeynayo xisbiga kulmiye la yidhaha intaa in la eg oo xumaantaa dalka ku jirta oo kulmiye ku leeyahay ma jirto anaa qiraya kulmiye xisbul xaakima oo wax la weydiiyo oo taliyaana ma jiro meeshan kooxaa taliya anigu 3 baan sheegay aan idhi waa la hafrayaa waxba ma helin nin kalena 3 buu sheegay uu yidhi 3daasaa wax qabsaday anigu 3 baan sheegay waxay ahaayeen xisbigan kulmiye waa la hafrayaa waxba ma helin nimankan isnam la yidhaaye odaygu uu guddoomiyaha u ahaana waa la hafrayaaye waxba ma helin reerkan magacooda la wadwadaana adeer 4 nin oo meesha jooga maaha wax allaaliye waxay heleen ma jiree waa la hafrayaa marka 3daas anaa sheegay nin baa gabaygan la yidhaha dibadyaal gabay xayiray iga horreeyay aniga raggii kulmiye iyo raggii soo tabcay iyo raggii oo dhan buu ka soo sheekeeyeen mid walba halka lagu tuuray dabeedna yaa maxaa hadhay baa la yidhi wuxuu yidhi dumar iyo carruur iyo qurba joogga weydii kooxaha meesha ku hurdama dumar iyo wadaad iyo buu yidhi dumar iyo wadaad iyo qurba joogga weydii waa 3 kooxood ugu xoog badan xukuumadda axmed siraayo rag waa qurba joog ka yimid dabadaha oo anigu odhan lahaa qurba jooggu doorka dambe turubkooda dib ha u baandheeyaan oo raggan doonaya inay guryaha ka dhistaan Maraykan iyo Yurub annaga kuwii $50,000 nin ka dhista aqal $50,000 ayaa ugu cirweynaan jiray oo weliba isna khajili jiray ninka doonaya inuu England ka dhisto lacagta u soo diro Ingiriiska boobka wax cad meel haysa ha waanu buruuf gareynaa aniga hay soo fadhiistaanoo hadda waxaan ku tusayaa baarlamaanka maxaad ugu gudbin weyday baarlamaanka muxuu ugu yeedhi waayay wasiirada
wasiirka ay masalan dowlista horta wasiiradan dhaqaalaha horta baarlamaanka iyo xukuumadda soo isku milaa mid qoray wada ahayn ma laba kala ahayn markay kala baxeen isku hadduun bay kala baxeen oo baarlamaankiina baarlamaan yahay sax xukuumaddina xukuumad tahay okay marka dee la xisaabtan karaa waa la keeni laakiin waxaan kuu sheegayaa mashaariic baa waxa ugu waaweynaa mashaariicda ugu waaweynaa mashruuca sahanka mid buu ahaa sax ka airportkuna mid buu ahaa sax waxa ku xigay oo de midiyaha iyo EU-da representative-keeda Soomaaliyaba ka arkayseen wadada berbera corridor oo ah waddo isku xidhaysay berbera iyo wajaale oo ku xidhmi lahayd markaa wadada Itoobiya weyn tooyin lagu xidhay ha mashruuci oo hay-addi gacanta ku hayso oo contractgii EU-d iyo igaad ay isla aqbaleen in bidhkii la bixiyo ayaa maalintii bidhka la bixinaya warqad la qoro la yidhi hay-addaa waanu baabiinay lacagta kusoo shubaysaan madaxtooyada xirsi keena musuqmaasuq way qoreen iyaga laftooda waxaan u kala garan weyn inay jahli ka tahay iyo inay musuqmaasuq la doonayo in jeebada lagu leexsado waxaan ku sheegayaa mashaariicdaas waxay dayn baarlamaanka la mariyo horta sax lama marin intan miisaaniyadda la yidhaah anigu aad ba uguma fiirsado way jiraan hay-ado lacaga badan lagu shubo oo waxba tarin waxaa kamid ah telefishinka qaranka 3 milyan iyo $1 baa lagu sameeyaa 5 TV oo private ay samayn karaysaa lacagta oo rangarayn karaysaa 5 TV oo private ah ama independent ah ayay inta keligii la geliyaa waxaa ku mushahar qaata dadaan uga shaqayn oo ilaa Norway ilaa Mareykan ilaa Ingiriiska aad joogto dadka lacag siiyo hay-adaha dawladdu ay gacanta ku hayso een uga shaqayn waxaa maamula oo awood ku leh dad aan xil loo doortayna jirin xil loo magacaabayna jirin marka taasoo dhammi annagu waxaanu ka eegaynaa ayonu dhiirigelinaynaa dawlad wanaag ka mucaarad ahaan idinku ma waxaad leedihin corruption ma lihiin oo dhaqaalana soo gala waanu aan taana kuu sheego waaye aan kuu sheego lix kasta ila dimuqraadi baa horta waa la noogu leeyahay sax 4 kun baa lagu yiri anigu ma arag sax ayay dawladdu siisaa xusbiyada sax waa tii farqaya madha sax ma 4 kun bas wax kale ilaa haddada arrimaha aan u la yaabanahay waxa kamid ah daan waxaan arki jiray xusbi war waxaan ku iri anigu de adeer horta ma u cudii hore waxaan ku sheegayaa waran sax ma u cudii hore sax de xusbiga hay isku wada jirtay sax soo cudiraan waan joogay markaan arkayo sax oo ciidan waxa soo gala 4 kun ee dawladdu bixiso marka kirooyinka laga bixiyo ee intaas wax laga bixiyo warbixintii bishii ugu dambeysay Faysal uu soo jeediyay wuxuu $500 baa ka soo hadha waanu proof garay ina far 500 baa ka soo hadhay shantaana kolba midiyaha iyo wixii de kale lagu bixinayo marka horta resource u cid laakiin haba yaraato inta inaanu xidhno inta inaanu xidhno waxa dhaqaalaabur u sameeyay waanu ku jirnaa okay in aan soo noqdo in arrimaha dibadda marka telefoon ma horta qabanaya kadibna aan ku soo noqonaya ku soo dhaw daawad halka ka soo hadlaysay magacaaga hello laakiin aad u soo koobay aad u raaliyo please hello ha ku soo dhaw oo lagu maqlaya assalaamu calaykum calaykum assalaam ma fiicantiin walaal walaal wanaagsan aad u dadaji walaal waan dadajinayaa marka hore waan salaamayaa labadiinaba aad mahadsantahay marka xigta waxaan leeyahay maxaan ku dhahdaa wadankan Soomaaliland dabtii loo soo maray qofna loo sheegi maayo hadalkan dadajinayaa wixii la soo qabsaday wixii loo soo maray cidna u sheegi maayo dadku markay maanta isdaahdeen waa nasateen oo dhibtii baa ka baxdeen oo musuqmaasuqii baa ka baxdeen oo dhibaatadii baa ka baxdeen oo dadkiinii iyo raggiinii baa ilaahay gacanta idin galiyay especially dumarkii iyo carruurtii markay isleeyihiin haddii raggii madaxda ahaaye maxaan ku dhahdaa la hogaamin lahaaye nawadi lahaayaan dabageli daba socon lahayn isu jeestaan shakhsi isku maagaane iyagu un isku jeedaan dee waxaa gubanayaa xumaanayaa warwarayaa tacabayaa waxa weeye dumarkii iyo carruurtii markaa raggan maxaan ku dhaha siyaasadda ku jira waxaa odhan lahaa ilaahay ka yaaba carruurtiina iyo dumarkiina u naxa oo intaas idinku isu jeedaan oo idinku maxaan ku dhahdaa shakhsi isugu jeedaan meeshan wadankeena maanta 80% waa carruur waa 20 jir iyo wixii ka sii yar waxa ku nooli waa maato idinka u raga idinka u siyaasidiina ina hogaamisaan baa loo baahan yahay waxaanu ka soo baxnay dib haynoogu celinina hanaga mixinina warwar hana gelina markaanu telefishinka aanu la dhammaan marka hadlaya
telefishinka markaan daawado waan iska rogaa waxaan isaga rogaana wax raggeena ku wada hadlaya weeye markaas ama ucud ahaada ama mid kale ahaada oo si wanaagsan baad ula hadashay ku maqlayaan markaa oo weliba waxaan leeyahay imika qolada ucud waxaan ku leeyahay anigu ucud ma raacsani labada kale midna ma raacsani maxaan ku dhaha gabadh reer Somaliland ayaan ahay weliba gabadhu soo dhaawacantay baan hob la dhanbaa gaadhi igula dhacay markaan mudaharaadi jiray ma garanaysaa markaa si gooniya baan u gubtaa markaa arko raggeenu isu jeedaan ma garanaysaa markaa waxaa odhan lahaa unaxa dadkiina idinku ha isu jeedino kursiga waxba maaha dunida waa laga tegaya aakhiraa la qabanayaa nin walaba weji ka tag oo dadkaaga weji kaga tag waxaan maanta kugu arko ninkan dee halkaas umaan ka arkaa maaqa waxaan ku arkaa umaan ama ku jeclaanaya ama ku nacaya ma garanaysaa anaa ku sibooraya ama aan kaga hadhaya ma garanaysaa markaa bliis noo naxoo dumarkii haddaan nahay carruurta haddaan nahay isu jeedka isu jeedaa naga daaya bal imika bahalka la xidhay telefishinka la xidhay ee maxaan ku dhahdaayey qoladan ucud u hadlayso oo ay leeyihiin keeni wadankana waynu gubaynaa yaale ma siilaan yaale telefishinka qarankaa leh siilaaya ma laha dawladda ma laha giddi waynu wada leenay markay leeyihiin ucud waxaanu gubaynaa ka qaranka nin kale oo maxaan ku dhahday maalin walba ina dacaadeynaya hablaheenii si xun kaga saaraya maxaan ku dhahday oo si xun u eryaayana waanu saboonaynaa absolutely aad baan uga xumahay anigoon cidna aanu kala jeclayno ucud iyo wadan muxuu ahaa wadan iyaga kale iyo aad baad umahadsantahay dad badan baa telefoon ku jira markaa horta qaybta dambe ee TV-ga iyo marka laga saaro hadal gara runtii noo naxa xaq baana loogu leeyahay weliba carruur iyo dumar waxaan se leeyahay waxaa ku mahadnaqdaan muqdisho qori bay isu sitaan sax way isdilaan sax oo waa la dhintaa oo meydkoodaa bata annagu kuwa yagaa imika is haystaa markaanu iska soo baxnana waanu wada fadhinaa laakiin hadalka iyagu wuxuu danqayaa gartay horta hadalka seefta uu ka daran yahay ha waa run mid waa gar baan ku yidhi idinku hays eegina sax annagana eega waayo annaga ay dhibaato nagu tahay hadalkiinan xadkaas wana runteed hadalkaana inaanu tixgelino dee anigu qofun baan ka ahay laakiin waa hadal gara oo aan ka garaabayo oo runtii sax ah laakiin waxaa keena warninka xilka haya ama cidda talada haysaa markay diido inay kula hadasho imika xidhiirka qura ee naga dhexeeya annaga iyo xukuumaddu waxa weeye waa kaa miidyaha aan isu marinayno hadduu madaxweynuhu channel u furto oo uu caligurayo kaalay arrinkan maxaa isku haynaa iyo qoladiina nucuday maxaa sheegaysaa hadduu yidhaa kii kula talinaya yidhi aan wada tashano baxa oo la eriyayo wada tashigii uu diido oo inuu xidhiir kale ila yeesho diido oo weliba uu miidyihii ii adeegsado aan la lahaa oo uu igu caayo aniguna waan soo fadhiisanaya markaa fa in cudtum waxaan taaganahay waan sheegaya annagu imikaba soo lanama maqlayo cid haddaan nahay fa in cudtum cudnaa baanu taagan hadday asluub hagaagsanna loola yimaado dee imikabaan qirayaa waxay xidhiirka wanaagsani laba dhinac buu u baahan yahay xidhiirka wanaagsan waxa isweydaarsada laba dhinac dhinac qura kama socon karo waayo dawladda ku maqlaysaa in kolley teleefonkaasaan qaban doonaa laakiin waa teleefonkii ugu dambeeyay buu noqonayaa si su-aashii ugu dambeysay aan ku weydiiyo kusoo dhawo daawad adoo soo koobiya aada u soo koob please assalaamu calaykum magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso walaa raxmaa la yidhaa cabdiraxmaan waan ku salaama adiga mujaahid cali guray kusoo dhawa mujaahid cali guray waan salaamay aad baan ugu farxay horta inuu UK inoogu yimaado sax ta kale anigu mabda'iisa ma raacsaniyo anigu dee cali guray wuxuu ka mid ahaa xisbigii udubaynu ogeyn halkuu ka gaadhay musuq maasuq in bangigii loogu iman bini marka anigu waxaan odhan lahaa mujaahid maadaama aad silaayana isla ahaydeen rag mujaahidiina ma waxaad garan weyda haddaad dhaliil sheegayso inaad ugu tagto madaxtooyada oo aada u sheegto intaad tifiyada u marin lahayd taasaan weydiinaya aadna waan u salaamaya badhawo baan leeyahay jawaabaya cali gurey axmed wuxuu ahaa in badan imika waa runteed aniga xidhiir toosana waanu lahayn xidhiirkii anaa gooyey xidhiirkii aanu lahayn waxa amar uu ku siiyey madaxtooyada in kadinka ilaa iyo isagaan gaadhayaan ciddii la hadal anytime anigu aan doono ninka qulhu siiyey baan
maxaad markaa u diiday mar haddii uu ku ogolyahay inaad saxdo inaad u timaado horta bal qaadashadu mar hadduu maya maya karaamada horta siiyey, qaadashadu mar hadduu maya maamuuska maya siiyey. horta qaadashada iyo inta isaga ku xidhan sixitaanka inta Haye. isaga ku xidhan Ah, iyo qaadashadu waa wax kale sax laakiin aniga ah ragga dadka ugu ixtiraamka badan yahay baan ku jiraa anigana waan aqaanaa wanaagiisa Okay. laakiin waxa weeye mhm, haddii maalintan joojiyey baan kuu sheegaya Mm. ee iigu dambeysay axmed inaanan madaxtooyada dib u gelin sax waa maalintii cabdiraxmaan cabdiqaadir oo dhabarka uga jabay guusha looga dhigay dhabarkaanu ka soo jebin ee uu odhan waayey waan ka xumay waxaa dhacay maalintaa cadhadii aan ka qaaday mhm, ayaan kaga maqanahay laakiin intaa bal dib u raaca intii ka horreysay intaa mhm. axmed anigu sito aan muqdisho tagaan ku idhoon anigu ictiraaf kaaga doono Okay. iska dhaaf wax kale ilaa halkaasaanu sheekaysan anigu tan dabadda badanka waxaad kusoo dhowow walaa qofkii ugu dambeeyay haddana soo hadlaya hallo okay in tan dabadda haddaynu masalan usoo yar noqono halo hallo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waa adoo dedejinaya waa laynkii waayo ugu waa dambeeyey waa wey. yuusuf oo idinkala soo hadlaya norway ay kusoo dhowow norway oo qofkii ugu horreeyay norway nagala soo hadla waayo waad mahadsan tahay walaal waa dhowahay horta caawa cabdijahaal cali guri arko aad baan ugu faraxsanahay sax waayo waxaan anigu u aqaan anigu yahay dadka keliya maanta tiirasha somaliland ilaaliya ah sababta oo ah waynu ognay maanta xaaladda dalkeenu marayo wax badanna waxa ay sababtay in dalkii maanta halkii 1991 uu ku noqday qabaayil baynu maanta maraynaa shayna qaran baynu ahay dabadeed waxaynu ku jirna taasi laakiin maxay nala gudboon dalka waxay naga galay tacab badan inaanu inaga burburin oo aynu nidaamkii ka badbaadi lahayn aynu samaynaa muhiima wadankii wuu sii socdaa hal sanaa hadhay wadankii maalin waan ogeeyay madaxweynuhu qabtay shirbeeleedkii liverpool oo kale waa tiila joognay waayo qarankeeni maanta meesha uu maraya waa meel u baahan in loo samro walaal shirbeelad mu ahayn waa annagaaba ka qayb galnay waan ku arkayay cabdikariim adigoo daawado ku jira shirbeelad mu ahayn annagaa ka qayb galnay rag badan oo mucaarid oo tegina waa nila soo hadlay somaliland oo dhow joogtay somaliland oo joogtay adaan su-aasha ku weydiinaya kolley cali gureyne uu ii dambeeyaa waa su-aasha way ku socotaa maxaa loo dayrinayaa eeg imika markii aanu liverpool tagnay dadkii oo dhan baa soo dhaweeyey wax wanaagsan baa laga hadlay wasiir xirsi horta ma dhegeysid wuxuu ku hadlay wuxuu yidhi intaasoo shir baanu ka qayb galnay mar keliya nalama leecin wuxuu yidhi intaasoo horumaraanu sameynay waddaanu sameynay oo cirgaabaanu sameynay ma mid kala sameeyaan yani hadallada noocaasa ma eegeysaan miya intaad leedihiin dalka waa dal baaba-ayo waa halkii 90-kiibuu maraya waxaanoo yan xeeray waa maxay bliis walaal markaynu eegno waxa weeye marka laga hadlayo guri la dhiso waxa ka wanaagsan horta walaal ummad la dhisaa ka wanaagsan haddii ummadeeni baabaadana maanta qoys ma ummadda silaaya baabiye markaa marayno guri muxuu inoo tarayaa wadda la dhisaa walaal okay aad baad walaal mahadsan haddii aynu ku faano xumaanta dadku waxa wanaagsan inuu wanaagana ku faano xumaantana qaato aad baad walaal mahadsantahay timekii warkii baa dhow markaa aada iga raalli ahow waxaan kusoo noqonayaa mujaahid cali gurey baan doonaya inaan su-aalihii ugu dambeeyay aan weydiiyo in su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan tan aan la weydiiyey un qaylo unbaa ayuunbaa meeshii ka qaylo unbaa socota waxaan ay madaxdu sheegaysa iyo dadkan faraha badan leh kusoo dhaweynaya sacabka u tumaya idinku ma aragtaan miya khayrkii baa batay horta niyahow horta anigu mid qura waan ka digaya wax waa loo qiraa horta dee horta waxaan ku iri haye maxaa u qiraysaan horta bal waxaan qiraya aan kuu sheegay horta anigu mid waan ka digaya sax xukuumadda iyo eedaheeda iyo dhaliilaheeda in la qabyaaladeeyo anigu ma ogoli sax oo reer hebel loo nisbeeyo sax sax inuu reer isa saaro xil aan loo dooran iyo eed aanu gelin sax inuu isagu xambaartana sax waa oo naftiisa hafro sax na waan ka soo horjeedaa waxani waa dad aynu dooranay xaq baynu ugu leenahay inaynu ixtiraamno maanta daahir riyaalaha la leeyahay halkuu uu baabi'iyey ugu musuqmaasuqa badnaa cid soo hadal qaata miyaad arkay sidii xilka uga degay waxaan lagu xisaabtay horta waa xilka midda kale markaan eego cabdiraxmaan axmed cali mar ilaahay ha u naxariiste eego maxamed xaaji ibraahim eega aan eega daahir riyaale siraanyuu ka nasiib badan yahay wixii lagu yidhina laguma odhan wixii lagula kacayna lagulama kicin
baabuurku wataa cabdiraxmaan lagaga dejiyey xabad صح maxamed xaaji ibraahim xigaal qori baa lagagala horiyey صح oo waa lagu dagaalamay صح waar waxaan la sheegaya horta waa dhaliilo waxqabadkan haddaba kuu sheegaya maxay qabtaa? way dadaashaa horta haye ma dadaalka haye wuu jiraa صح اللي سفره ما هاي لنا may horta dadaalkeedu وقرت laakiin wax la taabto صح oo iyadu initiative-ka ay leedahay iminka airportka kuwait baa lacagta bixisa صح lacagta channel baa gelisa صح waxay UN ku bixiyay waa berigaa waa la qaban jiray ceelka ay lagu qoday baa mid la waday صح mashruuca biyaha hargeysa waa mashruuc ciidan fangareynayso صح صح waxaanaynu haysanaana waa wax yarba صح oo anigu halkaa dee ma aha wax weyn ka sheegayo صح waddo ay dhamaysay ma jirto oo ay iyadoo horta dhistay waxaa lagu leeyahay waxbaa dhagax la dhigay waxbaa xadhig la jaraya wax initiative ah war aqal qol laba qol ahaa haddii qol lagu daro in madaxweyne la geeyo ma hadda mashruuca intaanka wada hadalkan ay furtay in Soomaaliya horta taas horta kaabaliikaadii ilaa waabanu taageernay markii hore maantana meel kale u maraya صح anagu waxaan eegayaa isku soo daro dhinaca dawlad wanaag cabdiraxmaan axmed cali dawladdu goonistaagii isaga ku dhawaaqay صح ina cigaal isaga haykalkan dawladda iyo maaragtay waqtigiisii iyo ciidan samaynta iyo haddaba kan imika darajada la siinayaan weliba leenaga wax wanaagsan baad qabat laakiin waa loo ogolaaday isagoon jirinba laakiin silaayo wax weeyaan ku dhac buu lahaa inuu war may horta darajada maaha kii sameeyey balka waran ciidankan uu darajada siinaya miyuu jiray rag baa sameeyey uu dhameystiri buu horta ilaa waa maraaxile waan gartay isaga ma buu jirin miisaaniyadan uu leeyahay waan saddex laabay ma buu jirin 5 sanadood anigu mushaar qaadan baan iska wax qabso shaqayn jiray oo lacag baa inaan lahayn oo inaan mushaar ba qaadan ayaanu sameyn jiray waxani waa wax socda waa continuity wax uu ku dareen ha wax bay ku dareen wax wanaagsan bay ku dareen shaqaalihii bay kordhiyeen lacagtii baa kordhiyeen miisaaniyadii baa bilaash lagama dhigin si kala looga qaaday iska soo laakiin wax bay qabteen haddaan bilaash lagama dhigin haddii la yidhaa horta waxba may qaban ninka yidhaahdo xukuumaddaasi waxba may qaban waa beenaale waana dambiile cidda tidhaahda waxba ma qaldana layskuma haysto xukuumadda waxba maydan qaban صح sababta laysku haysto maaha mushkiladdu waxa weeye waxba inaga qaldan maya may sidii leedin doonaydan ahayn maya waxba maya waxba qaldan baan isku haysanaa iyaduna waxba qaldan markaa tiraa waa dhaga culus waxay ku oranayaan waxba ma qabana dabadna liis bay la soo boodayaan dheer war liiska u kaadiyo waxa inaga qaldan ka iyo kaasaa qaldan صح marka waxba ma qaldan haddii la yidhaahna horta waxba wada hadalkan kugu soo noqonaya maxay idinka wada hadalkan ugu gure wada hadalka horta dee fil baan u taageer haye marka hore weliba anigu waxaan ahaa raggii ku dhiirigeliyeyba haye madaxweynaha raggii ku dhiirigeliyey haye wallaahi bilaahi soo kumaan odhan ha maalintaan anigu isoo taagay ee aan ku idhi noodaa mucaaridka kugu qabsada inaad soomaaliya wada hadal la gasho axmedow adiga kuba tala annaga inoo taallay mucaarida isqabsanayna laakiin yenan ma waxaynu nahay miyaynu gardaranay ilaa nin gardaran baa wada hadal diiday wuxuu jawaabtiisa noqotay cabdillaahi cukusaha wasiirka informationka wuu taagnaa wuxuu yihi waa sax laakiin wada tashi ballaaran ayaynu horta marka hore ka gelaynaa dabeedna waa kii guurtida la tashaday waa kii baarlamaanka la tashaday united baan nahay axsaabta mucaaradka la tashaday waydinkii ku ka biiray mudanahay waydinkii ka qayb galay Ha. shirkadda Faisal inta laba jeer raacay ka qayb galay. waa sax wada hadalka ilaa haddana mabda'iyan waxa mar kasta la isweydiinaya marka la socoteen ma meydaan diidin ma marka ka hadheen baa diidaysaa waa la maxay baa hayn taas garbaa la noogu leeyahay kar baa talad kullu hayo anigu waxban marka horeba qabay Ha. faysal oo ka had raaci nimankana raacay laakiin imika waydi ku soo noqota dee iminka annaga nagu soo noqotay waxaa la noo qaatay Ha. rag ka cadhooday in laga reebo bahalkii mana nihin waan gartay ee waxaanu leenahay war bahalkii dee midho ma dhalayo صح oo waxaanu isku haynaa صح albaabka koowaad waxa weeye shacbiga somaliland xaq ma u leeyahay inuu ka tashado aayihiisa mise uma laha that is the question waan gartay ilaa hadda xukuumaddaa kama hayno waxay ka qabaan soomaaliya war ma maya bay leeyihiin mise haa hadday leeyihiin xaqba uma laha waraaqahan la soo daabacay meel kasta lagu qoro ee labaduba ay qirayaan ee meel kasta lagu waxa laguma taabto qodobka waxa lagu sheekaa uun waxa lagu sheegaa wada hadalladu ha sii socdaan iyo inta aanu isla ogolayn islama diidan si socodka ma diidan ma waxa doonaysan wada hadalka ee Filistiin may waxaanu diidanahay maya dee horta may aan caddeeyo waxaanu diidanahay haye somaliland shacbigeedu ummadahaan xaqa ay ka tashiga ma leeyihiin mise ma laha way soo socotaa way maraysaa laakiin had degdegina haye dhowr bilood baa harsanay
kolba waxbaa la qaadaya Waa kolba okay. qolof baa kor loo qaadaya Waa okay. iminka waxay maraysaa bal intaynu iskaga soo dhawaan karnaan iskaga soo dhawaan waa soconaya madaarka aynu ka wada midowno horta haddaanu xataa guul inoo lahayn ha somaliland dhibaato ma la wada hadalkaas inta loo isu soo hor fadhiisanayo laba dhinac oo siman waan gartay somaliland wax allaali wax dhibaato u leeyahay haddaba hadiidina demaanaan diidan waydankan qaylinaya lamaha ma kama qayb gelayno soo kan xitaa gudoomiyihii cid lahaa maaha annaga wada hadal la furaynaba in koonfurta dee waa laakiin lamaanaan furin okay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha saddexaad ucid runtii aad buu u hadal cadcad iyo gudoomiye aad ugu mahadsantahay gudoomiye runtii siyaasiyiinta nala kulmaa waxa weeyaan sibaad moodaa inay isu adadkeeyaan laakiin adigu waxaagu waxa weeyaan waxaad qarisaaba ma jirto ha wixii daan qaldamana bashar baana aad iyo aad wixii uu cid qalad leeyahay aniga i weydiiya waan qirayaa ama ha ka xanaaqa u cid ama iyaga ka xanaaqin aad baad u mahadsan tahay daawadayaal runtii waqtigii telefoon baa ku jira okay sorry waynu dhammaynaynaa waayo timekii baynu ku raagnay marka aad ayaa ugu mahadsan yahay gudoomiyaha saddexaad cali maxamed yuusuf cali guray runtii aanu doonayna inuu dhowr saacadood oo kale nala sii joogo laakiin mar kasta timeka ayaana xukumaya wax badan buu ka hadlay waxaanu dadka u sheegay in waa la wada hadlayaa waa la iscanaananayaa laakiin in la dagaalamayo ayaan la moodin saasuuman hadalkiisa ka fahmay in alxamdulilah la yidhaha weliba axmed maxamed silaayana cid iga dhowey ha ma jirto intaasoo صاحب وحنا هاي بيرسونال عيش وملح عيش وملح مركا ما اسنا ما نعب انا من عيب اد ايوه ما تسيا هي قدوميهو ضمان انت نقلا سو قيب gashay inta nagala soo qayb gal weydaba waanu aad baan ugu mahadnaqaynaa intaanu mar kale insha Allah ku kulmi doono xogmaal kale waxaan idinkaga tagayaa amaana Allah nooli kulantay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh